بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمد الصوماليات يا أمد الإسلام كبا وحان لهاي كل عام وأنتم بخير. عيد وناكسن ميلو البؤة جوكتين كذا يدبد بقى إلهي أعماش وناكسن اللي قد حجري بريهان أنا أقبله ما أنت ومالين وين ومالين عيدة ومالمها إلهي أكتساءاتك أبوين ومالنتي حج الأكبر كإلهي أكتل معمي قرآن كان مفسرين انتوا ضبطنا أكو فسرين آيات أم قولك إلهي والفجر وليال عشر تبنكاس مع الموت تبنك مع الموت أقوه رسد الحج أيام مفسرين أنت أقوه بدن أي رهدان فجر كان وحلقوا فسرين ما ننتان أكله وما لندتك حجاج تأه أي محيئهاتو طوافكي إيو دغحتوركي إيو أي سمينا يعني تحللكي أما تمهي إني mataqaana gaabiyaan ama xiirtaan marka dadka aan joogin xajka ama aan acmaashaas ku jirin waxyaabaha laga rabo waxa ugu weyn takbiirta iyo mataqaana isbooqashada iyo farxadda iyo in mataqaana wixii la heli karo qofkii awooda inuu wax qalo waxna reerkiisa oo siiyo waxna oo dadka masaakiinta aan haysan oo siiyo marka maanta waa maalin farxadeed ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa farxad daa'ima inuu ummadda Soomaaliyeed iyo dadka muslimiinta ah uu siiyo taasoo aan ula jeedno inay helaan nabad iyo isku duubni iyo taasoo keenaysa horumar dhinac walba leh ummadda Soomaaliyeed waxay soo martay maraaxil kala duwan waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryaynaa inuu nooga dhigo maalin aan ku halmaano maalmihii xanuunka badnaa ee aan soo marnay oo aan higsano horumar weyn iyo midnimo iyo sharafkii iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed ee soo laabta waxaan rabaa nuqtooyin muhiim ah aan isleeyahay waa muhiim inaan sheego oo ay ka mid tahay in dhikriga Ilaahay oo ugu horeeyo takbiirta la badiyo maxaa yeelay ciidan waa ciid islaami ah marka waa inay la timaadaa dhaqankii ay lahayd ونبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أصحابتي سوى لقى سو جاري فرحدة ولا أقولها لكن فرحدة شرعية على رباطتكم إنه يكون أكادان والدينته يو أصحابته يقرابة إن لبغض الروا ضدكم بريهان وحيات وجو مشغول سيهن محنكم إلى تلفون هذا هي تكنولوجيا ده وحلقيها على وقف وجود إسلا جوكت إنه سلسلة هلين ويكون مشغول على مركز تكنولوجيا لو قف إذا استقرابة أهلك أحبة إن لو حريريو oo ay noqdaan wax u faa'iideeya xiriirka dadka u dhaxeeya aysan noqonin wax dadka kala mashquuliya sida hadda ay tahay waxaan rabaa inaan uga gudbo nuqdo kale oo muhiim ah caafimaadku islaamka aad u muhiim u yahay sida aan hore u soo sheegnaba cudurkan COVID-19 waa cudur khatar ah dad badan u dhintay dad badan u dhibtooday dhaqaale fara badanna waa ku baxaa qofku hadduu xanuunsado xataa gurigiisa joogo oo soo bixi waayo wuxuu ka mashquula hawlo muhiim ah oo guda lahay oo ay kamid yihiin cibaadaadkii iyo amalkii kale waajibaadka saaray guriga ka saaray qaranka ka saaray oo guto marka dadku inay is ilaaliyaan waxaan isleenahay waa waajib in lagu baraarujiyo arrintaasna waa muhiim marka mar kale waxaan leenahay cudurku uu waajira adduunka kama dhamaanin Soomaaliya adduunka ka mid tahay ما هي أنا هذا إحصائيات رسمية أو ذلك اللي قصوا صاري أما اللي هو ما ضام أنت صول أو مرايا لكن وحنا وذا أجنها والإنه جرا مركز كسومالي ميل جوجان بقى وحنا كبورينا إني تلوين كعافماتك دقاتيرتو يسوجيدين إني قاتان وأنا أرين دين أرين ليسكلي هاي معها هراي وحبضنا عصور شيخنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عذر كان عذر لميذا أو ليرا عذر كمحامكو إلى هذا داعون كانوا نقانو وحنا فري ماشي أو كل عقفك جوجا إنه ماشي سجوجا قفك بناكي سجوجا إنه سجلين عذر كان فافتان كأو كلام ذي هاي عذر كاس مركز ضد كسوة مالت جارهان ما دام إثبات الله دقاتير نوفلا أن لهين أما له أديك اللوبة هناي إن عند دالنا والوقاية خير من العلاج عن قاضنا ونسك إلى لأنه isdhexgalka faraha badan mararka qaar waxa laga yaabaa diintii si khaldan in loo fahmo oo farxadii hal muujiye la yiri iyo hal isbooqdadii waxa la isbooqa kara iyadoo la muujinayo talooyinkii caafimaadka in la raacayo
marka taas ayaan rabaa inaan aad u akeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan ka barino oon u tawaaducno oon u dhowaano in umuuraheena uu wadi noqdo mashaakilkeena uu xalliyo talada fiican ilaahay nagu toosiyo midnimadeena ilaahay xoojiyo midnimo wax ku noqon karnaa kuma noqon karno sida hadda xaalkeenu yahay waxaan rajaynaynaa inaan ka baxno oon ka bogsano dhibaatooyinkii na soo maray dhammaanteena waxaan isku boorinaynaa inaan ka shaqeyno sida qarankan oo dib ugu istaagi lahay isagoo midaysan isagoo caafimaad qaba isagoo isku faraxsan isagoo dulmi uusan ka jirin waxa dalkan baabi'iyay waa dulmi waa qaybsanaan iyo qof la arkay inuu isla quman yahay marka ra'yigaaga xataa hadduu kula fiican yahay inaad la wadaagtid walaalka ama walaasha waa muhiim si ugu yaraan ay u keento isfaham iyo aragti midaysan taasna waa tan diintu nafarayso ilaahay subxaanahu wa tacaala waa kana leh wa amruhum shuuraa baynahum ay amru lmuslimiina shuuraa baynahum marka dhaqankeena inaan islaamka asaas uga dhigno oon u celinno arrintaas ilaahay uu nafarayo oo tala wadaagga ah oo tala wadaagaasu meel uusan ku koobnayn qoyska ka bilaabanaysaa ilaa meesha ugu sarraysa marka shuuradu waa wax muhiima dhaqanka soomaalidana aad uma qadariyo ra'yiga kale marka inaan uga faa'iidaystaan rabaa maalintan wanaagsan iyo maalmaha wanaagsan oo la soo maray iyo maalmaha wanaagsan aan ku dhex jirno in aan waafajino taladeena wa amruhum shuuraa baynahum marka lama xadidin waana mudlaq amarkaas ayan kan marka waxayna ka mid tahay calaamaadka dadka muslimiinta ay mu'miniinta ah ilaahay subxaanahu wa tacaala mar kale aan naga dhigo kuwa acmaasha laga aqbalo oo mataqaanaa yowmal qiyaamaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u fududeeyo maxay ahaato maritaanka siraadka iyo la kulanka nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam iyo micinimadiisa wasalaamu calaykum